السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة برنامج كان أما ترسيقا كان إساقا أي عصب oo ku saabsan run ahaantiina la saanqaada barnaamijyadeennii hore oo aad inaga barateen, balse maanta arrimo cusub oo xidhiidh la leh arrimaha hore aan ka faalloonnay aan ku dulmarayo. Ethiopia haddaynu nahay Soomaali, albaabkii ayaanu ka xidhannay si aan u hor istaagno duulaankooda siyaasadeed iyo hubaysanba. ugu dambayn markay muujiyeen si badheedha oo hanjabaadi ku jirto iyo anshaxumo inay boobaan ciidda iyo badda iyo biyaha Soomaaliyeed. run ahaantiina Soomaalidu ciyaartay kaalin diblomaasiyadeed oo hor leh oo damacigaas isaga ee qutada dheer lagaga hortegay, uuna ugu dambeeyey qabsoomidii shirkii golaha ammaanka oo run ahaantii halkaa lagu cambaareeyey damacii dowladda Ethiopia, ayna dowladdaas iyada ah muujisay ama tiri inaanay lid ku ahayn ama duulaan ku ahayn ciidda iyo badda Soomaaliyeed, balse uu arrinkaasu aanu ahayn qaabkaas isaga ay wax u dhigayaan, uuna yahay in damaacigoodaas iyo xadgudubkaas ay wadaan wax weyn ka jiro oo la taaban karo. warkii oo kooban, Ethiopia mar haddii laga xidhay iyo ninkii kibirsanaa Abiy Ahmed albaabkii aynu ka xidhannay, mar labaad hadda marka loo fiirsado qorshuhu wadaa waa mid ah inuu inooga soo galo oo inooga soo dhaco dhanka daaqadda ama daaqadaha gurigeenna Soomaaliyeed, bacdamaa albaabkii guriga laga xidhtay. saas awgeed isagoo ku marmarsoonaya xaaladda nabadgelyo la-aan ka jirta Soomaaliya, oo ku marmarsoonaya inay khatar kaga aadan tahay ururka al-shabaab. la ogsoon yahay arrinkaas isaga ah laftiisa dowladda Ethiopia 2007 inay ururkii maxaakiimta islaamka ka dhigatay marmarsiyo. run ahaantiina ururkaas isaga ee xag jirka ahaa, balse dad badan oo Soomaaliyeed ay qaab kale u arkaan, ay jaanis siiyeen dowladda Ethiopia iyo inay ku soo duusho Soomaaliya, oo ciidankoodii soo gaadhay ilaa iyo magaalo madaxdeennii xamar Muqdisho. marmarsiyihii isaga ahaa ee xilligaas isaga ah ee tilmaaman ayuu hadda dabada ka wadaa Abiy Ahmed laftiisu, oo rabaa inuu ka dhigto ururka al-shabaab marmarsiyo uu ku soo galo Soomaaliya, isla markaasna ujeeddadiisu ay tahay suu howlaha diblomaasiyadeed iyo halganka ee Soomaali maanta waddo u kala dhantaalo. saas awgeed loo baahan yahay in arrinkaas isaga ah laga fiirsado, loo feejinaado oo laga hortago, oo aan jaanis la siin dowladdaas iyada ay xadgudubka wadata iyo prime ministerkooda
kibirsan ee qalloocan inaanay mar labaad ku soo duulin dalka Soomaaliya. arrinkaasu waa arrinkaas. arrinka labaad, iyadoo aynu ognahay inaynu qaati ka joognay iyo dhib ciidanka Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya, isla markaasna ciidamadoodu had iyo jeer iyo markay doonaan ku soo qulqulaan dalkeenna. bishii ugu dambeysayna ma gaar ahaan bishii Janaayo Yanaayirtii tagtay sanadkan 2024 ciidamo badan oo Itoobiyana ku soo qulquleen dalkeenna iyagoo without permission iyo ogolaansho aan haysan. ujeedadooduna tahay inay culays saaraan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, balse ay nasiib darro tahay in aan wax diidma ah iyo ka hortag siyaasadeed iyo mid ciidanba ku noqdoba ha noqdo intuu itaalkiisu gaadhsiisan yahay aanu ka soo bixin xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, oo halkaas jaanis lagu siiyey run ahaantii Itoobiyaankii, welina ciidankoodii ay ku sugan yihiin galo iyo baahi. arrinkaasuna yahay nasiib darro. loona baahnaa saan barnaamijyo hore ku tilmaamay in ciidanka Itoobiyaanka ee dalkeenna jooga laga raacdeeyo oo laga saaro. aan ciidankaasuna aanu noqon marnaba ciidan ka tirsaneen ciidamo Afrikaana ama keyrkoodba ha ahaadeen oo loogu talagalay ama lagu magacaabay nabad sugayaal. ciidan Itoobiyana Soomaali nabad uma sugayaan, dan uma wadaan, wanaag inagama soo gaadhay. saas awgeed waa in la gaadhaa marxalad iyo isku day ah in ciidan Itoobiyana aanu ku sugnaan carriga Soomaaliyeed iyo inaan ciidankoodu dalkeenna soo gelin oo ku soo gelin muuqaal xadgudub ah. labadaas arrimood oo ah kuwa isku lifaaqan oo lama huraan ah inay qaabka aan tilmaamay u dhacaan oo laga hor istaago joogitaanka dalkeena iyo soo gelidiisaba, iyadoo aan ishaysanno oo dowladdaasu ay cadow noogu tahay. sidoo kale hadallada ka soo yeedhay Abiy Ahmed waa kaarka cusub uu rabo inuu ciyaaro, balse anigu aanu arko inuu yahay kaar duugoobay oo sanado badan ay dowladda Itoobiya isticmaalaysay oo ah cunaqabatayn. balse nasiib darro, iyadoo dabkii kaarkaas isaga ah Soomaali kulaalayso oo loo jeedo, haddana aan laga hadleen oo aan waxba laga qabanayn. arrinkaas oo ah cunaqabataynta Itoobiya ku hayso Soomaaliya dhanka webiyaasha Shabeelle iyo Jubba, oo Soomaaliya biyihii laga xidhanayo, biyihii dabiiciga ahaa ee xaqa u lahayd oo aan wadaagnay annaga iyo Itoobiya. aana biyahaasu ahayn biyo Itoobiya ee leedahay, ka sokow inay ka yimaadaan oo soo maraan dhulyow Itoobiya ka tirsan iyo dhulyow Soomaaliyeed oo Itoobiya ay gacanta ku hayso. biyahaasu waa biyo wadaaga, adduunkuna ka dhigtay xeerar international ah lagu dhaqmo oo lagu kala baxo. aan geli karin in xaalad cadaadis looga dhigo Soomaaliya wixii soo socda
كهرنا أرنكاسو دعي تشري وصنق نقن تشري أو تصالح وحكم ذا إن مقالة بلدوين إيقاري تشرتي لبا موقال هذه يتشير مدنا فتهاد مدنا iyadoo biyihii ay qallalaan oo aan sawirada ku aragno carruur yaryar oo Soomaaliyeed oo wabigii iyo la qallajiyay oo qallalay kubad ku ciyaaraya arrinkaasuna uu ahaa mid ula kaca iyadoo loo dhistay biyo xidheenno dhanka Itoobiya oo biyaha laynaga kaantaroolay oo laynagu canoqabateynay arrinkiina uu yahay mid weli jira haddana uu ka sanqariyay Prime Ministerka Itoobiya ee duulaanka Soomaaliya ku wada Abiy Ahmed muuqaaladaas oo dhan waxay muujinayaan in dalka aynu dariska nahay inuu ay ka go'an tahay xaaladda cadaawadu iyo dagaalka loogana baahan yahay Soomaaliya iyo hoggaankeeda siyaasadeed qorshayaal midho dhal ah oo suurtagal ah oo lama huraan daawaday dhegayste waa anigoo ah Khalid Xasan Yuusuf ilaa intaan ku kulmi doono barnaamij kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu